السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال halkani waa barteenaal xorriye alaaba wararkii ugu dambeeyay ee dunida iyo caalamka ah ayaan idinku soo gudbinaa waxyaabaha ugu waaweyn ee xilligan aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa qayb ka noqonaya sidee ayay daawada dawlad cadow ku ah jiritaanka Soomaaliya ay ugu dhiiratay ka hadalka arrin ku saabsan siyaasadda Soomaaliya. Axmed Madoobe oo bilaabay qorshe lagu baabiinayo rajadii daciiftay ee nabad iyo nolol ay ka lahayd deegaanada uu ka arrimiyo maamulkiisa. ahlu sunna wal jamaa oo si adag ugu hanjabtay inaysan u dul qaadanaynin gumaysi lagu gelinayo dhulka ay xoreeyeen. Villa Soomaaliya oo awood iyo lacag dheeri ah u adeegsanaya baajinta shirbeeleed looga hadlayo xaaladda guud ee dalka. Somaliland oo markii ugu horeysay amar culus ku soo saartay dhalinyarada deegaanadeeda u dhashay ee safarada u soo gala Muqdisho. akhbaaraadka caalamka daawadayaal warkeena aan idinku haynana waxaa qayb ka noqonaya dawladda Talyaaniga oo xadidaad adag saartay goobaha lagu arkay cudurka coronavirus iyo sidoo kale dadka uu ku dhacay. qodobadaasi daawadayaal iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan baahinta warkeena ee haddii ay ku tahay markii kugu horeeyay janaalkan fadlan subscribe inoo saar. aynu ku bilownay daawadayaal sidii hordhaca wararkeenaba aad ku daawanayseen dawladda Itoobiya ayaa ka hadashay raaligelintii uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu dhawaan ka bixiyay xasuuqa Siyaad Barre ee deegaanada Somaliland. wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa warbixinteeda toddobaadlaha ee loo yaqaan Week the Horn ku sheegtay in raaligelinta farmaajo ay qayb ka tahay tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee loo arkayay isfaham ay labada dhinac gaadheen. warbixinta wasaaradda ayaa waxaa kale oo lagu xusay qaabkii uu uga jawaab celiyay raaligelintaasi madaxweynaha Somaliland, waxaana lagu yidhi madaxweynaha Somaliland ayaa soo dhaweeyay raaligelin guud oo madaxweyne farmaajo ka bixiyay xasuuqyadii Siyaad Barre. madaxweyne Biixi waxa uu u sacabo tumay tallaabadan inay tahay mid gaar ah oo weliba taariikhi ah. sidoo kale waxaa warbixintan lagu sheegay in labada madaxweyne ee farmaajo iyo Biixi magaalada Addis Ababa ay ku qaateen kulankoodii ugu horeeyay oo ay gaar u ahaayeen sida la sheegay albaabaduna ay u xidhnaayeen. dawladda Itoobiya ayaa u muuqata mid iyadu door weyn ka ciyaaraysa in dib u furmaan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo muddo hakad ku jiray weliba dejinta xiisadda ka dhaxaysa labada dhinac, balse guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan ayaa waxa jirta inay aaminsan yihiin fikirka ah in dawladda Itoobiya ay tahay cadowga ugu weyn ay leedahay Soomaaliya, maadaama gebi ahaanba aysan ogoleen jiritaanka dalka la yiraahdo Soomaaliya. waxaa xusid mudan in Itoobiya ay tahay dal hore dagaal loola galay isla markaana Soomaaliya iyo Itoobiya ay soo kala gaadheen dhibaato kala duwan, waxaana la shaacinayaa in xilligan Abiy Ahmed qorshaha uu ka leeyahay wada hadalsiinta labada madaxweyne ay tahay ka dhex faa'iideysiga kheyraadka deegaanada Soomaalidu ay leedahay, gaar ahaan dekada la tilmaamay inuu ka calaamadeystay deegaanada Somaliland. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo xalay ku hoyday degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ku sugan degmadaasi isagoo kala hadlayay la dagaalanka Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa waxa uu amray saraakiisha inay bilaabaan howlgallo ka dhan ah oo lagu sugayo amniga deegaanada iyo degmooyinka tirsan gobolada Jubbooyinka si looga saaro deegaanadaasi gacanta ay ku hayaan. waxa uu ballan qaaday Axmed Madoobe saraakiisha ciidamada Jubbaland in la siin doono agab kasta oo ay u baahan yihiin, ha yeeshee dhankooda looga baahan yahay inay bilaabaan dagaalka. saraakiisha oo la kulmay madaxweynaha Jubbaland ayaa 2 toddobaad ka hor waxay magaalada Dooble ku soo bandhigeen ciidamo fara badan kuwaas oo ay saraakiishu sheegeen inay fulin doonaan howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo ciidda cadawga ku ah maamulka Jubbaland, taas oo la sheegay in qayb ay ka tahay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ciidamadaasi diyaar ay u yihiin difaaca weerarka ee imaada dhanka dawladda Soomaaliya. Axmed Madoobe oo doorashadii ugu qabtay Kismaayo ka hortimid dawladda federaalku waxa uu wadaa abaabul uu dib iskugu ururinaya ciidamada daraawiishta maamulkaasi si aan saameyn taban ay ugu yeelan dhaqdhaqaaqa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. waxaa la filayaa in saacadaha soo aadan uu la kulmo qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka, ururada haweenka, waxaana kulankan kale oo uu kula balansan yahay saraakiisha Kenya ee hogaaminaysa howlgalka AMISOM gaar ahaan gobolada Jubbooyinka. Axmed Maxamed Islaam Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay sidii maamulkiisu gacanta ugu hayn lahaa guud ahaan deegaanadii uu maamuli jiray, waxa uuna tilmaamay inaysan jirin cid uu ka qaadanayo inay kala wareegto maamulkii deegaanadiisa. wali daawadayaal wararkeena ayaa daawanaysaan markana waxaynu aadi doonaa dhinaca deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.
iyadoo xiisad cakirnaan ah ay ka jirto magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug islamarkaana laba dhinac ay ku hardamayaan hogaamiyiin iyo sidoo kale laba madaxweyne ayaa waxaa arintaasi dheer in bando lagu soo rogay magaalada Dhuusamareeb. xildhibaan cibaado oo kamid ah xildhibaanada 20 ah ee ahlu sunna ku leedahay dowladda dhinaceeda ayaa sheegtay in hadda kadib aysan u dul qaadan doonin bandowga dowladda Soomaaliya ay ku soo rogtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug. magaalada ayaa waxa uu ka wadaa Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo uu kula sugan yahay madaxweynaha Galmudug garabka ahlu sunna Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan dhaqdhaqaaqyo aan loo dul qaadan karin sida ay xildhibaanadu sheegtay. waxa ayna xustay in maamulka ahlu sunna wal jamaaca aysan marnaba u dul qaadanaynin in laga wareego gacan ku haynta magaalada Dhuusamareeb iyadoona ay xusid mudan tahay in maamulka Qoorqoor xilligan gacanta uu ku dhigay meel kasta oo dakhli ka soo gali jiray magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug. xildhibaan cibaado ayaa sheegtay in magaalada Dhuusamareeb ay amni ahayd ka hor inta aan la geenin ciidamadii laga qaaday Muqdisho ee Harimacad loo yaqaan kuwaas oo magaalada geliyay xaalad bando ah. waxayna tilmaamtay in kaliya awoodoodu ay tahay dhibaateynta dadka shacabka balse aysan aadahaynin deegaanada ka maqan gacanta Galmudug ay haystaan cadowgu. waxay sidoo kale shaaca ka qaadeen hogaanka ahlu sunna ay kulamo ka yeesheen xaaladda taagan isla markaana ay go'aan ku gaadheen in jawaab laga bixiyo caburinta dowladda Soomaaliya ku haysa shacabka Dhuusamareeb. xildhibaanku ma aysan shaacin nooca ay noqon doonto jawaabtooda dambe balse waxa ay tilmaamtay in cabsi xoogan ay ka taagan tahay magaalada. hogaamiyaha ururka ahlu sunna wal jamaaca Macalin Maxamuud ayaa 13 bishan ku dhawaaqay in ahlu sunna ay la soo baxayaan hubkooda si ay uga hortagaan fasaadka ay dowladda Soomaaliya ka wado magaalada Dhuusamareeb. hayeeshee waxaa muuqata in maamulka iyo awoodda magaalada ay kasii dhamaanaysa gacanta ahlu sunna iyadoo dhowaan kooxdan lagala wareegay ilihii dhaqaalaha ee magaalada halkii hore ay u lumiyeen awoodii ciidan balse waxa ay tilmaameen ahlu sunna wal jamaaca in iyagu wali ay ku dhex nool yihiin deegaan ay hore u xoreeyeen isla markaana ammaan keenistiisa ay lahaayeen dowladda Soomaaliyana aysan uga cabsanaynin in magaalada Dhuusamareeb ay wax ku yeesho. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal badan ugu jirta sidii loo baajin lahaa kulan maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho kaas oo ay iclaamisay mid kamid ah beelaha deegaanada Soomaalida gaar ahaan Muqdisho. shirkan oo qabanqaabadiisu muddooyinkii dambe ka socotay Muqdisho isla markaana iskugu imaanayaan waxgaradka beesha ayaa waxaa lagu casuumay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale siyaasiyiin hayb ahaan ka soo jeeda beeshaasi. Muxyidiin Xasan Afrax oo kamid ah waxgaradka beesha oo u waramayay mid kamid ah warbaahinada dalka ee Muqdisho ayaa sheegay in kulankaasi ay iskugu imaanayso beesha uusan xambaarsanan caqabad ku wajahan dowladda ama qabaa'ilo kale sida uu hadalka u sheegay balse warar soo gaadhay warqabadka Al-Xurriya News ayaa tilmaamaya in dowladda federaalku ay ku dadaalayso in la baajiyo kulankaasi maanta ka dhacaya la iskugu yimaado waxgaradka meesha na laga saaro kulanka kaas oo sida ay sheegeen waxgaradku beeshu looga tashanaya ay heedaa. siyaasiyiin dhalinyaro iyo waxgarad kale oo beesha ka soo jeeda ayaa la sheegay in dowladdu ay u adeegsanayso baajinta shirkaasi waxaana wararku ay sheegayaan in waxyaabaha la qorsheynayo in lagu lafaguro kulankaasi ay kamid yihiin wadooyinka xidhan ee Muqdisho maqaamka caasimada ee maqan iyo arrimo kale kuwaas oo hadalkoodu aysan mahadin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya oo aan ogolayn in laga hadlo. Muxyidiin Xasan Afrax oo kamid ah waxgaradka beesha ayaa sheegay in haatan wax culays aysan ka dareemaynin dhanka dowladda balse ay ka warhayaan dad loo adeegsanayo sidii loo baajin lahaa shirkan isagoo carabka ku adkeeyay in kulankan uusan marnaba baaqan doonin isla markaana uu socon doono ilaa inta ay ka soo baxayaan qodobo gundhig u ah ayaha beesha. dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeynayaa in xildhibaano siyaasiyiin iyo sidoo kale dad ay siinaysa lacag dheeri oo adeegsanaysa sidii shirkan ay u baajin lahayd maadaama ay u aragto mid dabar jebinaya qorshaheeda. xukuumadda Soomaaliland ee horkaca madaxweyne Muuse Biixi ayaa markii ugu horeysay ka hadashay dhalinyarada ka soo jeeda deegaanadeeda balse safarada u soo gala Muqdisho oo muddooyinkii dambe soo badanayay. Jaamac Maxamuud Axmed gudoomiyaha gobolka Maroodijeex oo arrintaasi ka hadlayay ayaa uga digay dhalinyarada reer Soomaaliland inay u safraan magaalada Muqdisho oo ay tagaan. gudoomiyuhu sidoo kale waxa ugu baaqay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan fursado uu sheegay in xukuumadoodu ugu talagashay dhalinyarada Soomaaliland. waxa kale oo uu laablakac ku tilmaamay fursadaha dhalinyarada reer Soomaaliland ay ka heleen dowladda Soomaaliya kuwaas oo sheegay inuu ugu dan leeyihiin burburinta Soomaaliland waa sida uu hadalka u dhigay.
gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii dhalinyarada u soo jeediyay inay ilaaliyaan jiritaanka qarannimadooda islamarkaana iska dhagatiraan gacan haatiska dowladda, wuxuuna dowladda federaalk Soomaaliya u soo jeediyay in u yeedhashada ay ka daayaan dhalinyarada reer Somaliland maadaama ay ku nool yihiin dhul ammaan ah. waxaa xusid mudan in toddobaadkeenu kusoo dhaafnay gudihiisa mar sidani oo kale wax looga weydiiyay dhalinyarada kasoo yaacaysa deegaanada Somaliland soo gaadhaysa Muqdisho. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaruhu oo tilmaamay in kuwaasi ay yihiin kuwa xiiseynaya soo aragga magaalada Muqdisho, balse dhalinyaro ku nool deegaanada Somaliland islamarkaana joogtay dhulkan aysan marnaba u dulqaadan doonin ku noolaanshiyaha magaalada Muqdisho. arrintaasi oo mid ugu weyn ka dhigay sababaha amniga oo xusay in kaliya qol lagu xidhi doono. waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayay dhalinyarada reer Somaliland ee u safartay magaalada Muqdisho, kuwaasoo caburin iyo amaro kalaba uga taga deegaanada, midaasi oo xukuumadda si weyn loogu dhaliilo balse iyadoo indhaha ay ka daboolato. halka daawadeel wararkaasi aad kala socotaan waa Al-Xurriya. imikana akhbaaraadka caalamka. dowladda Talyaaniga ayaa waxa ay soo saartay tallaabooyin culus oo ay ku xakameynayso in caabuqa coronavirus uu ku faafo qaaradda Yurub. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa waxa uu ku dhawaaqay qorshe degdeg ah xilli tirada dadka caabuqaasi ku dhacay ay sare u kacday oo ay gaadhay 79 qof. tallaabooyinka ayaa la soo rogay kadib markii 2 muwaadin oo Talyaaniga la xaqiijiyay inay u dhinteen caabuqan. 10 magaalo oo ku yaala gobolka Waqooyi ayaa si adag waxaa loo geliyay karantiin. ku dhawaad 50,000 oo qof oo ku sugan magaalooyinkaas gobolada Waqooyi ayay mas'uuliyiintu weydiisteen inaanay guryahooda soo dhaafin. Master County ayaa sheegay in hadda mamnuuc ay tahay in la galo ama laga baxo deegaanada cudurku uu ka dilaacay haddii aanan qofka la siinin ogolaansho gaar ah. waxaa dhammaan la joojiyay dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo goobaha ay dadka badan isugu yimaadaan sida iskuulada iyo ciyaaraha ee deegaanadaasi oo ay ku jiraan ciyaaro ka tirsanaa horyaalka Talyaaniga oo la qaban lahaa maanta. booliiska ama haddii loo baahday ciidamada qalabka sida ayay tahay inay xaqiijiyaan in shuruucdaasi ay tahay in la fuliyo. mas-uuliyiinta Talyaaniga waxa ay ka cabsi qabaan in kiisas cudurka lagu arkayay gobolada ay dhaafeen habkii lagu gadoomin lahaa, taasoo adkeynaysa in la xakameeyo. cudurku si aad ah ayuu u xoog badan yahay waa uuna faafaya ayuu yidhi madaxa caafimaadka ee gobolka Lombardy. si kastaba ha ahaatee cudurkan cusub ee coronavirus ayaa markii hore waxa uu sanadkii tegay kasoo bilowday gobolka Hubei ee wadanka Shiinaha, ha yeeshee waxa uu ku faafay 26 dal halka in ka badan 1400 oo kiis iyo 11 dhimasho laga diiwaangeliyay dalalka ka baxsan Shiinaha. guud ahaan daawadayaal war waxaan idinka haynay dunida iyo Soomaaliya waa inta. mar kale intaan kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo, balse haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay janaalkan fadlan subscribe saar.